tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka Shiinaha ayaa dhaafay 1000 qof waxaana sare u sii kacaysa walaaca laga qabo heerka uu la eg yahay dhaawaca uu u geysan karo dhaqaalaha dalka Shiinaha. Shirkadaha ka howlgala dalka Shiinaha qaarkood ayaa weli shaqada ku soo laabanin kadib markii fasax dheeri ah ay siiyeen shaqaalahooda dabaaldegii sanadka cusub kadib halka kuwa kaletana ay dowladda weydiisteen balaayiin dollar oo deyn ah si ay u sii shaqeeyaan. Shirkadaha qaarkood ayaa sidoo kaletana shaqada ka eriyay dad badan inkastoo ay jiraan in madaxweyne Xi Jinping uu shacabka u ballan qaaday inaysan jiri doonin shaqo ka erid badan. Dhinaca kaleeto la taliyaha sare ee dowladda ee cudurkani ayaa sheegay in uu rajeynayo in faahfaahinta cudurkani uu dhammaado bishani February. Waxaana sheegay in tirada kiiska cusub ee cudurkani ay hoos u dhacday gobolada qaar. Guddiga caafimaadka qaranka ayaa dhinaca kaleeto sheegay Talaadadii in 108 qof oo cusub ay u geeriyoodeen cudurka inkastoo tirada guud ee dhimashada ay haatan tahay 1016 qof. In ka badan 20 dal ayaa xaqiijiyay inay heleen kiisaska cudurkani ku dhaca habdhiska neefsashada ee dabayaaqadii sanadkani tagay kasoo shaacbaxay gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha.